saaka waa soo kacday adigoo caafimaad qaba, laakiin soo ma ogid in badan oo ka mid ah dadkii xalay seexday saaka ma noola, in kalena waxay soo kaceen ayagoo xanuunsan. Alle wuxuu ku siiyey jaanis labaad ee u mahadceli, dhehna alxamdulillaah. Ha ka xumaanin dadka markay dan kaa leeyihiin ku soo xasuusta, sababta oo ah iftiinkuba xilliga uu mugdiga jiro ayaa la soo xasuustaa. Ogaaw, haddii aad noqoto mid ku mashquula nolosha dadka kale, waxaad waqti u waayi doontaa naftaada. Haddii aad u baahan tahay waxaad waqti geliso, naftaada geli. Haddii aad qof wanaag u gasho, iska jir inaad soo xasuusiso. Haddii adiga oo qof wanaag kuu galana, iska jir inaad ilowdo. Muhiim ah in lagu sacabto marka aad timaado, waxaase muhiim ah in lagu xasuusto marka aad maqan tahay. Inaad dagaal gasho oo lagaa soo guulaysto waa caadi, waxaase damiir xumo iyo doqonnimo ah inaad naftaada dagaal la gasho oo ay kaa guulaysato. Taasina waa farqiga u dhexeeya inay naftu ku hogaamiso iyo inaad adiga hogaamiso. Nafsadaada ku kalsoonow, qofnaha isku halayn. Caqabad kasta ee kaa hor timaada ku wajah karti iyo kalsooni aad naftaada ku qabto. Nafsadaadana wax u tar oo waqtigeeda ka faa'iidayso. Inta yar ee aad noloshan gaaban ku nooshahay u soco si tartiib ah, u noolow si fudud, samee wanaag, rabbigaana ka baq, una shaqayso nolosha dambe. Ha ka caajisin, hana isdhiibin. Halganka aad maanta ku jirto wuxuu kuu diyaarinayaa awoodda aad birri u baahan tahay. Dhib kasta oo ku soo maray waxay fursad u ahayd koritaankaaga qofnimo.